madarasada diiniga ah ee Nuurul Islaam ee xaafadda Cabdiqaadir Koosaar ee gobolka Togdheer oo maanta ay ka qalin jabiyeen arday tiradoodu gaaraysa 200 oo arday oo bartay culumta diiniga ee kala duwan waxaana ka soo qayb galay isku duwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka Togdheer Kayse Xaaji Diiriye kormeere Cabdiraxmaan Weli Weerar iyo gudoomiyaha xaafadda Cabdiqaadir Koosaar Maxamed Axmed Hired waxaana waayntii munaasabadaasi ka warbixiyay maamulaha madarisadani Maxamed Aadan Cilmi waxaanu yiri waxbarashada diiniga way aanu maxad ahaan waxaan dhignaa waa wixii sharciga islaamka ardaygu uu ku garan lahaa wuxuu ardaygu ku cibaadeysan lahaa oo ugu horeeyo quraanka kariimka marka maxadku laba qaybood buu qaybsan yahay labada qaybood waa qismun li tahfiid alquraan alkariim iyo qismun li ulum alshariica labada qayboodba waan isku hoos wadnaa si ardayga quraanka dhigtay oo u yaqaano at least dahaaradii habku dahaaro qaadanayo way salaadii dahaare u baahan tahay meydki hadii uu ku kulmo sidoo ugu tukan lahaa akhlaaqiyadka iyo mucaasharaadka iyo muaamalaadka bulshada dhexdeeda ee islaamku jideeyay sidoo bulshada dhexdeeda ugu dhaqmi lahaa intabana waxaanu ku dhignaa maxadka halka maanta xafladeenu waxay koobsanaysaa laba arimood mid waxa weeye jaa'izayn yaro kooban oo intii aanu awoodno ee daaqadayada ah inaanu siino ardayda ujeedada labaadna waxaan maanta isugu yeernay waalidiinta iyo maartay marti sharafta kale ee nagala soo qayb gashay maamusidan quraanka kariimka ah aanu sameeynayno inaanu siino ardayda dhameysatay kimaal lil hifd al quraan al kariim maartay si fiican u xifdiday oo ah tiraba laba arday oo siinayna shahaadadii xifdigooda iyo ardayda 15 jis xifdiday iyo maartay ardayda 10 jis xifdiday marka ujeedada labaad ee kale waxa weeyaan waa dhiirigelin aan doonayno maartay inay ku dhiirigelino ardaydeena inay maartay arkaan ama ay higsadaan ardayda hore ee maanta la leeyahay ama ay u joogno inaynu hambaliyeyno u duceyno maadaama quraanka soo gaareen halka horena muddo xaafada 20 sano ma filay inay jirsatay aan hore looga soo saareen arday leeyahay waa xaafidul quraanil kariim maanta xamalatul quraan ayayna maanta xaafadeena ka soo dhaxbaxday waxaana leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ardayda ha ka yeelo kuwii maaratay naftooda iyo waalidkooda adduunyadooda iyo aakhiradooda uga faa'iideeyay intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta kormeere ka tirsan wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha xaafadda Cabdiqaadir Koosaar iyo waalidiin waxaan kaloo idin sheegay waalidka hal baan faraya arurtiinu kii qalin jabiyay kan qalin jabiba ka qalin jabiya halka kaga hadhina wan macnaha quraanka uu bartaa taswiirka la geeyaa oo halka kor ugu sii socda wa barakaatu maxadka Nuurul Islaam sida laga dhawaajiyay wuxuu furnaa muddo kooban buu furnaa waxa se ka muuqata inuu sameeyay xawaare aad u dheereynaya waxa weeye halka waxa ka muuqda dadaal baa ka muuqda waxaan leeyahay markaa waalidka iyo macallimiinta iyo maamulku inay yihiin dad isku xidhan oo wada shaqaynaya halkaas ayaa keenaysa inuu kor yimaado ilaahay inuu inoo adkeeyo tiirka diinta ee faatixada ku marayna inta timina Allah khayrkeeda ha siiyo inta timi waxaan filayaa xaflad la isugu yimaado waa xafladii ugu qaalisanayd ama ugu wanaagsanayd waana ilaahay mahadii maanta iyadoo arday quraanka kariimka dhameysatay qaar kala badhay iyo qaar meel wanaagsan maraysaba ay xaflad loo qabtay ugu dambeyntii waxa halkaasi abaalmarin lagu gudoonsiiyay imtixaankii laga qaaday madarisadani iyadoo halkaasi abaalmarin kala duwan lagu gudoonsiiyay macallimiintii iyo waalidiintii gacanta ku haysay wadkaasi